xumaan ha u qaadan laakiin ra'yigayga haddaad doonaysid inaad qaab hagaagsan dhistid raggana v dumarkana hour glass marka ugu horeysa waa inaad muruq dhistaa. Muruq dhisna macnaheedu waxa weeye inaad cuntadii badisid. Wax allaale wax iga galay inaad calool leedahay ma jirto. waxba igama gelin inaad xoog u dhuuban tahay, waxba igama gelin inaad dhexdhexaad tahay. haddii aad xoog u buurantahay mooyaane 30% hadduu baruurtaadu ka buurantahay sawirkan aad arkaysid haddaad kasii buuran tahay markaas oo kale hoos u soo yar dhaadhac waa waajib ma garanaysaa. waxaan saa ku leeyahay sababta aniga ayaa waqti inaba caadi intaa kusoo lumiyey. maalmihii ugu horeysay ee jimkaan soo galay waxa kaliya tan isku dayay waxa weeyaan baruurta u meesha ka saaro, cuntadii baan yareeyay, nafaqadii soo gelisay baan yareeyay, dhaqaaqina aad iyo aad baan u badiyay. waan gaadhay halkan doonayay oo inaan caloosha lumiyo waan doonayay, laakiin dhibaatadu maxay noqotay liid baan soo baxay. dee waa sidii adoo libaax ka soo cararayay oo intaad guri ka gashay gurigaasna shabeel kugu jiro. dhibaatad ka soo cartay dhibaato kale aad gashay, labaduba dhibaato. haddana doomnidii bay noqotay inaan xalliyo. markii hore moodayay wixii ugu wanaagsanaa haddaan gaadho, laakiin videogan baa kugu sheegay midda igu caawisay inaan dhinacan soo gaadho. dadkan la shaqeeyana ay kusoo arkeen farqi wanaagsan. haddaad u baahanta inaan kula shaqeyna waad taaban kartaa linkiga commentska yaala. xilliga ugu fudud eed muruq dhisi karaysaa waa 2 sano ugu horeeya. muruquna waxa kuu saamaxay markay baruurtu meesha ka baxdo amba haddaan baruurba lahayn wixii qaabka kuu sameynay weeyaan. muruqyada waxaad dhisaysaa ku yeelaya qaabka doonaysid inaad yeelatid, oo laadskii iyo garbihii iyo waxyaabaha dumarkana gluteskii iyo quadkii iyo waxyaabahaas. dhowr video horta taawan kaga soo hadlay. 2 sano haddaad ku khasaarisid nafaqo cunto aad iyo aad u yar dee waa khalad. walking baa laydhaha habkan aad cuntadii badinaysid ee aad doonaysid inaad muruq dhistid. muruq waad yeelanaysaa oo muruq aad iyo aad u badan waad dhisaysaa ma garanaysaa. laakiin haddii aanad qorshe hagaagsan amba wax si hagaagsan aanad u wadin dee baruurtii baa ka badanaysa muruqii. dad arkaysa imika sawirkan oo boolkan xilli aan ku jiray weeyaan oo cuntadaydu aad iyo aad unba iskaga badnayd, wax qorshana kuma wadin. dadku laakiin badanka waxay u qaysamaan 2 qof cuntadiisu aad iyo aad xitaa hadduu u badiyo aan farqi baruur hadday noqoto aan arkayn, oo aad iyo aad u adag tahay inuu baruur jidhkiisa ku kordhiyo. taasna 2 shay bay keenaysaa. in qofkaasi uu kaalorigii cunayo amba cuntada cunayo intii ku biirinaysa ay aad iyo aad u yar tahay, amba in uu qofkaasi metabolismku waxa weeyaan habkan uu jidhkeenu wax u gubayo. maskaxdaadu waa organ u baahan energy nabaad yahayn, wadnahaagu waa organ energy u baahan siduu u pump gareeyo dhiigga. adigu organiskii iyo xubnihii oo dhani energy wada baahan. marka dad metabolismkoodu badan yahay dadkaas energy-gii u baahan yihiin amba energy-gu jidhkoodu qaadanayo ayaa aad iyo aad u badan. taasna genetic ba la yidhahdaa oo sida loo kala dhashay. qofka kalena waxa weeyaan qof haddii uu keeg ursado 40 kg ku biirayo in yar buu wax ka cunayaa ayuu arkay inuu miisaan gareeyay amba miisaan ku biiray. qofkaasna 2 sababood sida caadiga ku wacan. waa kii kale cagsigiisa oo inuu kaalorigii cunayaa aad iyo aad u badan tahay, isagoo cuntadiisu 2 waqti oo kaliya tahay xitaa ay still haddana u miisaan arkaya sababta kaalorigiisa badan. amba in qofka metabolismkiisa aad iyo aad u gaabinayo amba slow uu yahay. slow metabolism wax la yiraahdo oo qofkaas energy-gu jidhkiisu qaadanayo yar yahay. taasna waa genetic sida caadiga. qofka waxa uu haboon in 6 waqti ilaa 4 waqti wax u dhaxeeya uu cuno maalintii. waliba inta uu cunayaana ay noqoto cunto high calorie amba cunto kugu biirinaya wax aad iyo aad u badan. waynu kaga hadlaynaa videoga dhammaadkiisa. iyo proteinkiisa uu aad iyo aad u badiyo sababta proteinka muruqa waa waxa ugu muhiimsan aad qaadan karaysid. haddii aanad protein qaadan waxa u badan ee kugu kordhaya waa baruur. haddaba qofkii kale inuu imanaa qofka labaad waxa weeyaan qofkii dee miisaanku sidaa ku biiriyay, yacni wax yar buu cunayaa miisaankiiba ku kordhaya. qofkaas haddaba wuxuu sameynayaa 3 ilaa 4 waqti ayuu cayinsanayaa. weliba 3 amba 4 waqti waxay noqonayaan cuntooyin aan kaalorigoodu aad u badnayn oo proteinkooduna aad iyo aad u badan yahay. qofkii kale cagsigiisa sida caadiga oo laakiin ay ka sameeyeen yihiin proteinka, labaduba waa inay proteinka badiyaan. qofkii koowaad kaaloriga cuntadu cunaya aad iyo aad u yaraanaya, qofkan kalena kaalorigu cuntada uu cunayo ayaa badnaanaya. marka waa qorshe yaro kooban oo 2 qof aan u kala qaybiyay marka oo si yaro kooban aan imika wada taabtay. waxa ugu xun ee kaliya ta sameyn karaysa waxa weeye inaad nafaqadiisa ku yarisid bilowga amba inta 2 sano ugu horeeya aad ku jirtid. haddii aad xitaa dhaaftay imika oo intii hore aanad ka soo arag farqiisa u sii weyn, imika cuntada markaad kordhisid ayaad arki doontaa farqi. marka 2 qof horta waa waajib inay baruur ku kori doonto xoogaa ka bacdi 6 bilood ka bacdi 10 bilood ka bacdi meelahaas. baruur iyo muruq labaduba way ku korayaan. sababta labadaas nooca ugu kala qorshaynin waxa weeyaan qofkan degdeg uu miisaanku ugu kordhaya inaanu baruur badan ku kordhin oo waxa kordhaya uu u bato muruq
أنا برور أبدا حواجي مركز دميسيد بالكنكي إن cutting واحد هذا دنقشيت أو cutting كاسنو كوسا محينا قاب كي يرايه سناي دونسي هدي أنت هنا فيديو كويليات تكبرت هنا اور كلاس كي شيب كي هدي أدور دستي مرقدي كوسا محي أديلتي markaas macquul ma inaad waxyaabahaas oo dhan aad samaysid haddii aanad garanaysaa loo xisaabiyo calories-ka saa u kala garatay cuntooyinka calories-ka badan iyo cuntooyinka calories-ka yar saad ugu dabaqdid qorshihii aan maanta oo dhan ka soo hadlaynay taaba videoga dhinacan yaala saa u bartid calorie xisaabinta aad iyo aadna u mahadsantiin daawatay videoga